waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxyaalihii ka soo kordhay COVID-19 waddankeena. 24 saacadood ee ugu dambeeyay xaaladaha la helay tiradooda waxay gaaraysaa 79. waxaa rag ah 62, waxaa dumar ah 17. nambaradaas meesha ay ka kala joogaan Soomaaliya, Banaadir waxaa jooga 38 xaaladahan inshallah 24 saac ugu dambeeyay laga helay. Jubbaland 22, South West 11, Puntland 8. marka dadka laga helay da'dooda haddaan fiirino inta ay u dhaxayso iyo boqolleyda ka yar 20 sano waxay noqonaysaa boqolkiiba 3. 20 ilaa 39 waxaa u dhaxeeya da'dooda waxay gaareen 75 boqolkiiba. 40 ilaa 59 iyagana tiradooda waxay gaaraysaa yacni boqolleydii 12. 60 sano iyo inta ka weynna waxay noqonaysaa boqolkiiba 10. tirada guud ee dadka laga helay waddankeena coronavirus positive ah waxay isugu tegaysaa 835. dhimashada waxaa ku soo korortay 3 qofood. ilaahay ha u naxariisto, jannadii ha ka waraabiyo, sabar iyo iimaan ha ka siiyo intii dhimatay. tirada guud ee dhimashadana waxay isugu tegaysaa 38. waxaa laga waayay viruska jirkooda ama ka bogsaday cudurka 14 qofood. tirada guud ee bogsatay waxay noqonaysaa 75. sida loo jeedo nambaradii daan fiirino Muqdisho gobolka Banaadir iyo gobolada kale waa sii kordhaysaa. waxay u sii kordhaysaa weliba si aan caadi ahayn. haddii la fiiriyo taas micnaheeda waxaa jira dad kaloo ka badan oo aanan weli la arkin ama aanan soo sheegin, soo raadsanin adeeg caafimaad. waxaan kula talinaynaa qof allaale qofkii cudurka calaamadihiisa isku arka ama isaga shakiya inuu tago xarumaha caafimaadka ugu dhow, inuu wacdo nambarkii loogu talagalay goboladoo dhan. nambaraa jira loogu talagalay oo free ah, inuu wacdo, inuu warsado yacni kaalmo caafimaad iyo waano. inuu qofka isqariyaa waxay keenaysaa in asagana cudurka kaligiis uu yacni uusan raadsan oo ku sii xanuunsado, inuu u gudbiyo dadka u dhow. cudurkan ma aha cudur la qarsado, waa wax ilaahay naga haayo la daaweyn yacni laga hortagi karo, waa wax qofka lagu kaalmeyn karo inuu ka bogsoodo. ha u gudbinin qofka aad jeceshahay, ha u qarinin cudurka. haddii aad adiga isku ogtahay ha u qarinin qofka aad jeceshahay ama kula nool ama familkaada ama saaxiibada ama bulshada inteeda kale. waxaa ku saaran waajib. qof kastoo annaga naga mid ah waxaa saaran waajib inuu asagana iska dhowro una tura dadka kale. lacalla haddii aad calaamadihii isku aragto isxakamee, guriga qol isku xakamee, ha la falgelin dadka, ha qaadsiinin, raadso kaalmo caafimaad. waxaad walwal ugu jira dadka waaweyn da'da ah ama dadka cudurrada raaga qaba chronic diseaseska oo iyadana aan adkaysi badan sida dadka dhalinyarada u lahayn. saad arkaysaan tirada ugu badan waxa waaye dadka da'dooda ay dhalinyarta ilaa 40 jir. fadlan waxaan idinku waaninaynaa, idinka codsanaynaa inaad taxadirtaan. cudurkan waa cudur faafa. mararka qaarkood jeermis jirkaada ku jira viruskii oo aadan calaamado lahayn ayaa jiro. iska ilaali, afka xiro markaad bannaanka aadaysid, gacmaha si fiican u dhaqo, nadaafadda guud si fiican ugu taxadir. bannaanka haddii aad ka maarantidna bixidda ha yaraato. meelaha ciriiriga ah ha tegin. waxaa la fasaxay iskuuladii, waa la fasaxay jaamacadihii, shaqooyinka waa laga joogaa. inta badan waxaa lagu shaqeeyaa haddaysan ahayn shaqo aad muhiim u ah goobtaas uga ah guriga laga shaqeeya. fadlan aan ku wada dadaalno. hal qof ama 2 qof ma saarna waajibka, dawladda kaliya ma saarna, laakiin qof kasta oo Soomaaliyu saaran yahay waajibka inuu asna iska dhowro, qofka walaalkiisa bulshada inta kale uu ka dhowro. ilaahana garab gali doono insha Allah tacaala. waa ducaysanayna, laakiin xakameynta iyo isdhowridda qof walba asagay ka bilaabataa, asagay ku dhabaata.